waxaa maanta oo sabti ah degan xaaladda magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug kadib markii 24 saac ee la soo dhaafay uu dagaal xoogan ku dhex maray magaaladaasi ciidamo taabacsan ahlu sunna iyo kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya. waa barigii hore ee saaka ayaa waxaa ciidanka dowladda u suurta gashay inay gudaha u galaan xarunta Inji oo ay deganaayeen hoggaanka sare ee ahlu sunna, waxaana ciidanka dowladda isku dhiibay ciidamadii taabacsan ahlu sunna. hogaamiyaasha sarsare ee ahlu sunna Macalin Maxamuud iyo Sheekh Shaakir ayaa isu dhiibay ciidanka dowladda iyagoona dalbaday in rasaasta laga joojiyo, waxaana amnigooda la wareegay taliska qaybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. madaxii xukuumadda Galmudug Sheekh Shaakir ahna xubin ka tirsan ahlu sunna oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay soo afjareen dhibaatadii ka taagneed caasimadda Dhuusamareeb oo ay u tanaasuleen danta shacabka. waxaan halkan ka sheegaynaa oo ka cadaynaynaa dhibaatooyinkii ka dhacay caasimadan in aan go'aansanay in aan soo afjarno oo dadka shacabka aan u turno oo aan ilaalino. taas daraaddeed ayaan waxaan u samaynay tanaasul aan u samaynay aan u tanaasulnay shacabkeenna markii aan aragnay in dhib badanu soo wajahan yahay oo wixii dhacay weliba ka sii badan ayaa waxaan samaynay tanaasul aan u samayn. marka bulshadeena waa jecelnahay. sidoo kale hogaamiyaha ahlu sunna ayaa sheegay in amniga Galmudug iyo tan caasimadda Dhuusamareeb ay mar kale ku wareejiyeen dowladda federaalka ee Soomaaliya. waxyaabaha aan haddeertaan ku heshiinay mas'uul ka mid ah mas'uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya General Mas'uud in uu maalan la wareego ciidankii halkan joogay inuu la wareego ka bacdina mas'uuliyadda amniga dadka mas'uuliyiinta oo jooga mashaayikhda culimaa diinka uu mas'uul ka yahay. oo si kastaba ha ahaatee ciidanka militariga Soomaaliya gaar ahaan guutada 15aad oo u badan ciidankii ahlu sunna ee la qarameeyay ayaa la wareegay amniga madaxda ugu sareysa ee ahlu sunna. qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka dowladda ee ku sugan Dhuusamareeb ayaa wado dadaalo kala duwan oo la doonayo in lagu kalsoonsiiyo madaxweyne Qoorqoor iyo hoggaanka sare ee ahlu sunna. Cabdi Ghafaar Habi, warbaahinta Daawa.